السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله شرفت لك كسود وهذا مقالك إن امتحانها قرآن يو ساينس قرآن ساينس كا مقالك شنات ما أنتو حسوا أنا آيات قرآن كمدة سورة فصلت سورة أفرتني كواد آيات كونتن إسداد إلى سبحانه وتعالى عليها سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وحان تصينا آياتهنا وأنا كنت تصينا jihooyinka koonkan ama daafaha caalamkan ama dunidan iyo naftooda gudaheeda ilaa ay u cadaato inuu quraankan yahay mid xaq ah. rabbigaada niyuusan ku filnayn inuu yahay isaga mid shay kasta qadara ama awood u leh. ilaahay subxaanahu wa tacaala aayadan gudaheed wuxuu noo sheegayaa inuu tusi doono aayado calaamado oo qof kasta nafsadiisa lagu tusi doono qof kasta mise safar cirka aad oo dayaxgameed raac mise dhulka ku safar ilaahay wuxuu ku sheegaa inuu aayadihiis kugu tusi doono jihooyinka koonkan iyo nafsadaada gudaheed qof kasta nafsadiisa ilaahay ay tusi doono. sida jumlada u dhacaysana waa aayado sii socon doonaan weligood soo socdeen ilaa iyo waqtigii abuuristii hore ee aadam ilaa iyo qiyaamo saac ay socon doonaan. hadba dadka markaas joogaan aqliyadooda iyo fahankooda iyo garaadkooda inta ay la eg tahay ilaahay wuxuu u muujinaa aayado ay ayaga wax ka fahmi karaan cilmiga ay joogaan iyo casriga dartiisa. xilligan aan joogno maanta qarnigan 21aad suurtagalnimada casriga iyo tiknolojiyada darteed waxaa la sameeyey baaritaan badan cilmi baaris badan taasoo lagu ogaaday waxyaalo badan culuum badan oo faa'iido leh oo maanta nolosha bini'aadanka qayb weyn ka ah taasoo suurgal ahayn in la sameeyo qarnigii 18aad 300 sano lasoo dhaafay macquul mahayn in cilmigan hadda la joogo la sameeyo ama lagu fikiro. qarnigaas 18aad dadka marna kuma fikiri jirin in bini'aadanku uu gaari doono maalin maalmaha ka mid ah in uu u safri doono ama uu tegi doono dayaxa korkiisa ku degi doono ama inay ku wada xiriiri doonaan telefono ay ayagoo isla joogin ay ku hadli doonaan mise in ay ku safri doonaan wax duulayo diyaarad inay ku safri doonaan qofna kuma fikiri jirin 300 sano lasoo dhaafay. balse haddii xilligaas qof uu soo jeedin lahaa fikradahan casriga maanta la joogo haddii qof soo jeedin lahaa qarnigii 18aad iyadoo lagu jiro 300 sano hadda ka hor haddii qof soo jeedin lahaa in diyaarad lagu safri karo in telefoon la soo saari karo haddii qof soo jeedin lahaa dadku waxay dhihi lahaayeen waa waalan tahay maxaa yeelay xilligeed lama joogin caqliyadda waqtigaas dadkaas garaadkoodana meeshaas ma gaarsiineen. laakiin waxaa leedahay hadda siday suuragal ku noqotay in dadka ay sameeyaan yacni progresskaas horumarkaas inay sameeyaan in diyaarad la soo saaro lagu safro in dadka dayaxa ay u safraan dayaxa dushiisa ay ku degaan in telefono lagu hadlayo iyadoo lasa joogin siday bini'aadanka uu suurgashay inuu soo saaro aaladahan casriga ah. waxaad is leedahay xilligaas qarnigii 18aad ama 300 sano hadda ka hore ma jirin qalab casri waxa lagu ogaado inaad is leedahay macquule. laakiin saaxiib ma ogtahay qalabka casriga ah jiritaankiisa naftigiisa wuxuu u baahan yahay waa aqoon kale in la gaaro loo baahan yahay. laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa jawaabtaas siiyey aayadda aan soo sheegnay uu ku bixiyey markuu ilaahay leeyahay waxaan tusayaa aayadayda fil aafaaqi wa fi anfusihim daafaha koonkan ayaan ku tusayaa aayadahayga iyo nafsadooda gudahood markuu ilaahay leeyahay macnaheedu waa ilaahay wuxuu bini'aadamka siinayaa awood uu ku ogaanayo qayb ka mid ah cilmigiisa asagoo ilaahay uu qaadayo daaha u dhaxeeya. waxaa jira waxyaalo qaar ilaahay uu qariyey ilaa ay waqtiga loo gaaray marka ilaahay wuxuu qaadayaa daaha kadib bini'aadamka ilaahay wuxuu sakhiraya inuu arko shaygaas uu fahmo uuna ku intifaaco markii la gaaro waqtigii u habbooneed ee la fahmi lahay markaas ilaahay wuxuu dhahayaa kun fayakuun wan ahaaw wayna sii ahaanaysaa. markaas waxaa suurgal noqonaysa bini'aadamka inuu shaygaas helo uu arko uuna ku intifaaco. ilaahayna wuu sii tusi doonaa bini'aadamka aayadihiisa ee kowniyaadka ah mar kasta iyo xilli kasta. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu marar badan uga hadlay qur-aan gudihiisa
siduu koonkan u abuuray, wareegga bisha ay samayso, wareegga dhulku sameeyo, wareegga qoraxda ay samayso, dhammaan wixii falkiyaadka la xiriiro. sidoo kale ilaahay wuxuu marar badan ka hadlay siduu u abuuray bini aadamka. abuuristii koowaad aadam calayhi salaam uu ka abuuray caro qoyan oo haddana qasan oo dhoobo ah sidii dhirgii camal, kadib la suureeyey, kadib ruuxdii lagu afuufay, kadib bini aadam saas ku noqday. laakiin maanta waxaa jiro dad aaminsan aragtida evolutionka loo yaqaano evolution theory, aragtida ahaanshada ama inuu bini aadamka kasoo faracmay ama uu la leeyahay xiriir nasabeed daanyeerta iyo waxyaalaha noocaas. waa qolal laadiin ah ayaa noocaas qabaan, laakiin waa iska aragti un wax macaan lama yeelanayso. si kasta ay u dadaalaan ama ay rabaan inay u ogaadaan bini aadamka abuuristiis koowaad siduu ahaay, sidii ay u ogaadaan experimentally, yacni si waaqici ah oo practically ah inay u helaan ayay isku dadaalayaan, laakiin marna ma gaari karaan. maxaa yeelay waxyaalo qaar waxaa jira ilaahay uu xadiday mise uu qariyey, sida ilaahay uu qur-aankiisa ku cadeeyey suuratul kahfi gudaheeda aayadda 51 ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. ما ننكيرن جوب جويل أبورستا الرضا يدلك إيوه أبورستو ضبا مركي إيجل أبورا إيه مركي دلك إيجل أبورا هنا حدنا إلهي جوب جوي كما دقين ولا بين آدم مركا مرنا مقدع دونتو أما مقاري دونتي إنا أغاتي سيدي بين آدم كالو أبوري واقعي عم experimentally إنا أغاتي مرنا مقاريسي maxaa yeelay waa wax oo ka qarsoon oo ka xadidan, waa cilmi ilaah. marka sidoo kale ruuxda waa wax ka baxsan ogaanshaha ama aqoonta bini aadamka. waxyaalaha noocaas ah science-ka waa ku guuldareystay inuu ku salgaaro. guuldarradaas science-ku ku guuldareystay inuu ifiyo ama iftiimiyo sirta ku qarsoon abuurista bini aadamka si loo ogaado waaqici ama experimentally inuu science-ku ku guuldareysto. waxay guul weyn u keenaysaa qur-aanka kariimka ah siduu u sheegay mooye si kale inaysan jirin, taasoo su-aal weyn ay ku reebtay maskaxda dad saynisyahano waaweyn ah